hortaanigu yaabaye وهذا النوين هبي أديقنا وحنسأني قلنا كلها هاي أنكو هردقيا هرو صعدو انتي هبليو هوسيا باس نهود هيان هو يماندك هلبهدي هليل هيان هو تديدي وهلكيدي
higatay biba ya halka si badan ayay manartaade وعليكم السلام horu socdow intay hebeliyo hooseeyaha baas nahodayaan hooya mandeeq hilbaheedii haliilahayaan hootadaydii waa halkeedii markiyaan usad tahay gulweegana waa lama huraane seeran qaran helo walle kama haro hooseeyaha baas seeran qaran helo walle kama haro hidaga taagli وكا شي هكا تجين حسين ذا حق من واشي هكا تجين حسين ذا لأن واشي هكا تجين حسين ذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلتي إسلام ظاهر إسلام سعودة إسلام الدور وعيد الله أبدا وقتها ينور القيمة عليه وإذن كوكو بلابا يا هذا الكيسة أرو سعودو انتي هبليو حسيا هباس نهودايان هويا ماندق البهدي هليلا هيان هو تذيدي وهالكيدي هو تذيدي وهالكيدي هذا اللي نوحن كسو جرعيا جيران غران هلو ولا كما هارو هنف يلا باس تاسيوا هردعي يا هستي برنامجكم انت هو وطي aad baan idin salaamaya barnaamijkayguna maanta wuxuu daaran yahay dhowr qodob saddex qodob qodobka koowaad waa xildhibaanada qeyboobay ee aan xishoonayn ee dadnimada ka tegay
caqliga dhuunta ka galay iyo anaanufka daba jooga ee qabyaalada ku raacay ee aan kala garan karin qaran iyo qabiil xumo iyo samo rag iyo dumar cadaalad iyo cadaalad darro kuwaas oon isleeyahay adduunyada dheeri bay ku yihiin allihii ku abuurtay eedma leh ee indhihii ku arkaa ayaan daro waan hubaa in hadaladaydu dad badan dhibayaan balse waa dantaadii waxaan maaragtay ku dhibaya ee nafta iskugu kaa timi intaas waa intaa waxaan doonayaa marka ugu horeysa in aan ku bilaabo gobolka banaadir waxa la yiraahdo oo beryahan ay caadaysteen dad dabadhilifyo ah dad ay hagayso lacagtii imaaraadku dad ay hagayso doqonnimo ay u dhasheen dad ay kasoo duxayso isirxumo asal ahaan ay u dhasheen oo dhaxal ah dad aan qiimo ku lahayn ibni aadamka dhexdiisa dad aan ka xishoodo london gudaheeda waxaan arkaya dameero badan oo kaciyey balse waxaan maqlay dameeruhu waxaan ku naqiinay hal cod ee iyagoo codad badan leh wallaahi iyo bilaah waa idin dhaartay dad anigu marka kuraasta ay soo fadhiistaan meelaha baararka aan ka kaco oo aan ka xishoodo oo fadhigooda aan diido maadaama xigmad ahaan waxa haddaad qof xigmad laawo ah haddaad muddo ag fadhido ogaabo waad xigmad beelaysaa wallaahi dadaan ka kaco iyo bilaah oo ay kamid yihiin kuwa aad ogeydeen ee maalin dhaweed markii la yiri Soomaaliya badroolkeeda iyo barwaaqadeeda banaanka soo dhigato intay soo dhaqaaqeen aad ogeydeen ee meesha tagay badroolkii la xaraasha badroolka ayagoo ujeedada ka dambaysa ay tahay codkii imaaraadka oo la dagaalsan in Soomaaliya badroolkeeda la soo baxdo ama dekedaheeda samaysato oo cadawnimada heerkaas iyagoo toodii fulinaya iyo in aan intaasba kala ogeyn oo aan fahmi karno qaadan laakiin qabyaalad lagu kiciyo waa ku aan idin leeyahay marka ugu horeysaba xumaha iyo samaha kala ma saari karaan dadka ay necab yihiin waxa laga yaabaa farmaajiye qayray necab yihiin waxa ay ku necab yihiin haddii su-aal laga weydiiyana wallahi kama jawaabi karaan haddaad weydiisa dadkaas oo tiraahdo war farmaajo miyaad necab tahay haa ma qayr aad necab tahay haa sababta aad u necab tahay ii sheeg bashaare khaliif iyo yaasmiin iyo bitid iyo kulligiinba walla waa idin salaamaya goobta meeshan ku jirta dadka sharafta leh waxaan arkay dadka anigu marka aan idin leeyahay waryaarahan dadkani ma aha dad ibni aadamka waa u qolof egyihiina waa duqsi maanka duqsiga ku jira markaan idin leeyahay waa dadka aan korontadu qaban markaad meel ka fiiriso diinuhu rabbul ciza haddaad su-aal weydiiso qofkani wuxuu kuu sheegayaa farmaaja nac buu ku leeyahay waaya waa necbtay khayrana waa necbahay hee maxaad ku necbtahay haddaad weydiiso shaqsi kaaga jawaabi kara oo wixii uu ku nacay sheegi kara kuma jiro hebel baan jeclahay buu ku leeyahay aad jeclaatida maxaad ku jeclaatay haddaad weydiiso wallaahi inuusan kuu sheegi karin iyo bilah wallaahi baysan kuu sheegi karin hadda waxaa la rabaa wuxuu sheegistu wuxuu dadka waa kuu sheegayaan waa ku oranayaan laakiin waxa ay kuu sheegayaan waa inay maangal noqdaan kasoo qaad waxay ku leeyahay batroolkiyaa la xaraashay because waxaan ku dhacay batroolkiyaa la xaraashay maangal ma taha maya wuxuu ku leeyahay waxaad leedahay war maxaad ku nacday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladdaada maxaad ku nacday wuxuu ku leeyahay Ethiopia naloo dhiibay ilaahay baan idinku dhaarshay waxaasu ma yihiin wax maangal ah oo macquul ah oo qof kugu qancin kara maya ilaahay baan idinku dhaarshay caddaanka iyo madowga shisheeyaha aan lagu qancin karo so marka dadkan markaa ilaahay qofku wuxuu qofka ku jecel yahay iyo waxa uu ku necab yahay waa dad aan garan karin hadda habadhood waxaan arkay hebelka nuurcadda iyo walax la sheegayay dhalay meel lahay ma aqaan iyo dad lamid ahoo wallaahi baan ku iri iyo bilaahi iyo tallaahi waxay qaataan lacagta cudurka maanka ku dhaca waana run oo way qabaan cudurka dadka been sheega ma dadna been bay ku raadsadaan lacagta oo madaxan ka jirana oo waxaan cudurka waxay hayeen maskaxda cudur maskaxeed ayay ku lacag doontaan oo been ay ka sheegay qaarna waa run oo waa sax
dadka habeen dhowed dad waxaan arkay isu yimid waxay yireen waxaan isgarab taageynaa nin magaciisa ma aqaan nin ka hebel abtidoon ama hebelka socdaal oo wuxuu raadinayaa masiirka gobolka banaadir ayaan garab istaagaa maxay garab istaagaan iyaga yaa la xanaanayaa oo ilaahay iloogeey mid ilaahay bendii sheegi dad wada jiran oo aan caqli lahayn oo garashada ku hooseyso oo waxa uron iyo waxa fiican aan kala aqoonin oo la keer gareeyo oo dad iska jiran ah ama iyo kuwa dayacan oo wali dowladda gacanta aysan ku dhigin oo ay u dhiman tahay horta goosna waxaan kula talinaya waxaa leeyahay wareedhaye kuwii meeshaas ka qayb galay kuwan lacag qaadano please baxa u taga dowladdan xaquuqad ku leedihiin dowladda ingiriiska wallahi xaquuqad ku leedihiin billah haddaadan ogeynin anaa idiin sheegay cid kasta oo kuwii habeen dhaweeli lahaa waxaan u raadi waayo dadka waa aqaanaa oo wada aqaanaa single mother ilmaheedii dayacday oo ay dariiqyada qamriga ku cabaan ama qaar la dilay haddii la ku ruran yahay aabe khayr al-mas-uul ah oo naagihii ay qabeen ay caqli la-aan ku eriyeen aan salootada markay wada fariistaan u sheekeyn ka jiro inta kula laboota dariiqa tag ilaayaha ku qaadday dadka London ugu hooseeya wallahi inaan idin sheegin garashada wadaniyada iyo wadaniyada waxaan kuma eedeyneen waayo waxayna ugu eedeynin maba gaarsiisnaba qofka waa inuu wadaniyada gaara iyo wadaniyada xumada kuwa lacag soo qaato saddex aha ku jira oo aan naqaano maxaa la isku hayaa fiiri dowladdan batroolka markii ay annaga imaaraadka horta maxaan isku haynaa annaga imaaraadka maxaan isku haynaa marta yaa diidi kara in imaaraadku uu yahay cadow Soomaaliyeed qofka diidiya waay yay tahay qofka oranaysa imaaraadku ma aha cadowga koowaad ee Soomaaliya ee xilligan jira al-shabaab waxay soo gelinayaan hubka ay soo dhiibayaan nuclearka ay yuud ka soo qaadayaan ee ay al-shabaab dhex gelinayaan si ay noogu gumaadaan maxay diidan yihiin marka waxay diidayaan dhaqaalaheena inuu kabsado sababtoo ah waa dad faqri ku daalay oo beri ka baxay abeesooyinka qalan jiray quud ay aad masalugalay oo go-ay haba abaal daraadani maantana waxaan la dirirayaa waa laba la diriraya waa istaraatiijiyadeena oo number 1 caalamka oo haddii aan ka faa'iideysano ay abeesalugalaydi haddana iyo midida isaaleysiinayaan ilaa ariya geel iyo lo iyo beero iyo batroolkaas cid ku leexanayo ma jirto wallahi midkan Soomaaliya u jeeda maxaa laga firi adigoo ka raba adigoo raba inaad ri ka soo galato afgooye gaalkacyo ma aadi riyaad rabtaa inaad soo galato gaalkacyana waa joogaan arigii meesha la yiraahdo afgooyna waa joogaan xamarna waa joogtay xageed dooranay afgooydu raadsanay maxaan ka doonaa waa intaasoo kaleeto iyadoo inta waxaan naga soo horjeedo ee imaaraadka iyo inta xun iyo carab oo dhammaan ugula dagaalamayso waa laba waa batroolkeenan oo soo baxaa oo iyagoo iska haystaan hadda istaraatiijiyadda wadadan qaloocan ay ku yaalaan iyo wadadan toosan oo highwayga M25 kan dhag isla markaasba soo u socda markabka uu ka qaadanayo halkiisa ka naqanayo san jiro oo san habeena kala sii dhixin waa labadaas waaya qofka markay yiraahdaa batroolka Soomaaliya inuu soo baxo maaha ilaahay baan idinku dhaarshay ama dekedeeda imaaraad siiya ma ku qanacsan in imaaraad la siiyo rabbi baan idinku dhaarshay horta baan si imaaraad ahayn fikirkii imaaraadka munisidi fikirkii imaaraadka Soomaaliya ha imaaraadka inta kala la siiyo waa badasay doonayaan in cuuriyaamayaan doonayaan ilaa kuwoodii baan soconaynina waa inay tan ka faa'iideystaan ama ay halkan ku cuuriyaamiyaan tan si tooda loogu leexo waa qodob batroolku hadduu soo baxo batroolku meel walba hadduu yaallo oo maxaa leexiyey maraakiibta maxaa weecinayaba ma halkan ka qaataan dukaan albaabkaaga ku yaala iyo dukaan ku yaala gobol oo isku waxaya gobol banu aadaya cidna yeeli mayso labadaas oo imaaraadka wato ciddii fikirkaa wadata aad ku aragtaan inuu imaaraadka yahay miyaan is weydiinayna su-aashaas is weydiin miyela waa waxaan is weydiin lahay dadkan markaa hadda aan arkayay ee batroolkii Soomaaliya la xaraashaya horta marka ugu horeysa waxaan ka xumahay auction inaysan macnaheeda aqoon auction waa dad iska juhula ah ama aan awood ay wax ku bartaan balahayn auction waa naadana ninkii kul yeesha ee ugu lacag badan baa qaadanaya 100 101 102 105 110
2 مليون 6 مليون 6 مليون يا برا واساس اوكشن واكاس والنادو اوكشن كيس المعني هذا باقو ولا عراش وجد marka qaar ujeeday wataan qaarna waa ka dhabtii ku taagnayd hadii lay ku reeyay calankii maxaa ishay muuqaalkii ummadda Soomaaliyeed madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii isku taagtay dhibdhibaysay jabteeda qabtay ma aan qof waxba kale ogma qof wax kale ogma waayo waa iska jaahil waa qof iska xayawaan ah waa qof u baahan baahi gaar qaba oo u baahan wax alla waxay kale ogtaa male laakiin waxa jira dhowr wata oo imaaraadaysan waayo fikirka waa fikir imaaraad waa isku raacnay istaraatiijiyada iyo batroolka inaan banaanka la soo dhigin imaaraadka waa intiisi kuwana waxay ku duulayaan waa inta waxay raali ka yihiin kuwa imaaraadka siiyay dekadihii Soomaaliyeed oo doctiin waa imaaraado hooyada dekadaydi la watane hooyada iyo airportkii inta doontaan qaadada inaan xagal qalin la dhiib xag waa shakhsi waa shakhsiyad xagal qalin noo dhiib leen waa ruuxnay إيرو قالنا تهينو ديب ده عدة دونتين أنت دونت سي يا عمو أدور أنت دونت قال أنا أنت دونت ده يا وعي صار ندى النسي خلاص أنا أخذتها من 51 هيا الإثيوبي عديتها 18 اسكدر ما يقول 18 و51 سقال إيو وهي لحظة تضبط إلههم كل درس فيها ودكدت النيت إيه سواليات أو مال استراتيجي قيمة لكتال أرجع سديد تواني توبيانسي أنا كوبي كونترانقات سجالي اللحظة كوبي كونتران ربي بان وروح سوقات سجال اللحظة ما حاجة سجال اللحظة كانتها مايا سجال لحظة ربي بان كول دارش مواطن صومالي صدحية كونتران قاتانو سيداد يو طبعا waxaan siiyay hadii lay ku royahay nimanka la yiraahdo ishag oo fiirsaya sideed iyo toban waxaan siiyay Ethiopia aniguna waxaan qaatay 350 koob iyo 70 baan sidaa kula wareegay aniga iyo amxaaro inta kalena de ku go koob iyo 70 rabbi baan idinku dhaarshay هل هذا معقول متى سقالي تون هاي محمد أبو بكر ما سقالي تون بين هذا وحي السياحة بشدة أفر يصد أن أنت كوبية تضباطن هذا جراد علي جراد جامع أدبن كسرمية war macquul ilma adeer rayaal ilaahay baan idin ku dhaarshay aqli macquula ma yahay aqligaas qaar ba taageersan oo kuwii taageersan marka dadka firiya kii sameeyay waa khaan xagal qalin buu waxa u qaat laakiin kan raacsano ma garan kariya waxa xun iyo waxa fiican xaq ma u leeyahay inaan su'aal weydiin ma kala saari kariya sama iyo xumo ma kala saari kariya Soomaalinimo iyo sanjuxumo ma kala saari kariya dantiisa iyo waxaan dantiisa ahayn ma kala saari kariya qabiil iyo qaran wax ma laga weydiinay habeen dhaweyd marka waxaan arkay halkan u socdo kuwii lahaa batroolka Soomaaliya ayaan la soo saaray wala xaraashaya oo saddex baa wadata Ismaan Qox iyo mid la yiraahdo iyo Cabdiraxmaan Dheere mid la yiraahdo Cabdiraxmaan Gaaljacal iyo kuwaas awtay aniga aan aad soo naqaan lacag ka soo qaatay imaaraadka waayo fikirku waa fikir imaaraad horta fikir Soomaaliyeed ma waa wada ognahay fikirkan imaaraatiya dekadaha iyo batroolka laba cali isma weydiinayso waa isku raacsanna talabada waa isku aadan inta kadahana la cuuriyaamiyo ama ay la wareegaan istaraatiijiyada batroolkuna uusan soo bixin waxba su'aal iska weydiinna dadkii nooca aha hebelka nuurcad qof aan iska aqaano iska allow sahal wallahi billahi allow sahal rabbiyan ku dhaartay allow sahal caadi ربي أنا إلهي إذن كورة قال له سهل عادي واحد صوفر استمر كاسان ماشي هبلاي نور عدي ودد لقى لا إله إلا الله مقالة مقدش يا ولا مركب وحاك لا ولا ددك أحدي مقالة مقدشو إنه سكوني هذا عبد ذا كوي راي كون إيه سجال بقول كوب إيه تضبع سجاشن كيبا مقدشة اللي سكوني كون إيه سجال بقول كوب سجاشن
maxaa geliyey oo meeshaa keenaya ujeedadeedu waxay tahay halka su-aaloon isweydiinaya waxay tahay war adiga oo ka yimid adigoo axaddii yimid maxaa meesha kusoo geliyey maxaa adiga masiirka magaalada muqdisho wax adiga ku geliyey muxuu yahayna adeerow yacni waa shay la yaab le wax lala cajiibo wey waa wax lala yaabo oo ummaddu la yaabto oo lala cajaayibo maxay tahay wax lala yaabaaye adiga axaddiyaadba timide magaalada muqdisho iyo masiirkeeda maxaa ku geliyey meeshii aad ka timid haddaad xataa kollay ciidanada waxba ku weydiin mayse sunday boy iyo sunday girl waxa muqdisho masiirkeeda geliyey waa faduul kuwan kale iyagana waxaan isleeyahay warde waxaa khalad ah horta yaa wax idin weydiinaya horta reer xamaran aan ka hadlayn masiirka magaalada muqdisho waxaan ka hadlayn mursadan ka hadlayn waxaan ka hadlayn abgaalka caafimaadka qabay hadda abgaalka qaar dadna waa dad caafimaad qaba dadna waa dad lumay oo hadda waa dadkii la habar gidir meel xun ay nooga tagtay hiraabkii ay nooga tageen oo shalay meeqaan lahay war hiraabku waa buuriyana waa la gooyaa goorayna go-ay hiraabku waa munaafaqad ee wax saxa maaha dadka waa la ogyahay hawiyenimo wixii lagu diiday wixii soomaalinimo lagu diiday ee soomaali baan nahay lagu diiday waa wax meesha ku jira garao waxbaa meesha ku aasan laba waxaa la yidhahdo ma garanaysay hawiyenimadii waxaa looga tilaabay ee hiraab loo yiri halkaas waxbaa ku jira macnaa ku jira marka waxaan idhi waa xawaadla goor hore sheegayo xawaadluhu marka geelu ka lumo markii ay waxay sameeyaan waa niman geel badan leh allaha xifdiyey oo allaha u daayey markii geela waad ogtihiinoo rag waaweyn baa raaca oo meel fog baa la geeyaa markii la geeyo waxaa lagu daraa kurayo wiilal yaraa lagu daraa kurayo la yidhahdo wiilku marka geela soo ugu maqanya marka dambe wuxuu gaarayaa xilli intii uusan qaan gaarin waa in la gooyo qofka beejada laga gooya intuusan qaan gaarin markaasaa la weydiiya o yihahdaa ooryaarahen markaasuu xawaadlu yihahdaa arlibay aba wiilka aaway markaasaa le wiilkaay wiilkii yaraayo kurayada laga soo celiyo geeli markaasa waxaa lagu sa markaasa hiraabkaa laga goynaya hiraabka xawaadla mar hore kaas meel dhigay wataan lahaa xawaadla beri hore meel saaray waxaa leedahay hiraab goor dhow hiraabna sideedaba waa la gooyaa haddana waa go'day oo waa tafooda laga hirif sakiina loo helay waa qarannimo iyo dowladnimo sakiinteedu somaad waxaan intaasoo dhan uga socdaa waxay tahay abgaalku waa laba waa xayawaan luma oo la raadiyo oo beela kaa dhaqdaan iyo abgaal la yaqaano oo abgaalaho dhaladaho la yaqaano ibn al asiirahoo dadnimo lahoo gobahoo soomaalida dadka ugu fiican kuwii dhintay ee lo-da ee layska maalayey ee caanahooda layska maalayay oo garan waayey wuxuu garan waayeyba qofkani cidda iska leh cumar waa ku salaam walaal dadka iyo rahane iyo aad baan idin salaamaya dadka aan garan karin cidda iska leh dameerku markii uu garan waayo cidda iska leh waa ayaan daro soomaad gar marka waa ayaan daro oo ma ahan macnaheedu maba eedaynayna kuwa si markaad fiiriso laakiin waxaan idiin sheegaya abgaalka gobta ah sheekh cali wajiis cali geedi dowlado waxay tahay yaqaani salaad cali jeelle ka daran yariisow ilaahay noo caafiye yani waxaan rabaa inaan laba sife aan idin tuso laba sife oo dadku ay u qaybsan yihiin inaan tusiyo dadka noocaas ihi eedima qabataayo abgaal ma qabataa maya eedima qabato kuwaasaa hadda ka horaan waxaan arkay habeenaan waxaan ku riyooday niman cadaabta loo wado oo la cadaabayo oo laleeyahy waa la naari doonaa oo saas loo quminayo oo la garaacayo malaa'igu garaacayso garbaash naar ah la dhacayso bash markaasaan waa riyo wixii ah run hadda run ha u qaadanina markaasaan ka toosay markaasaan war waa reer hebel waxaa igu soo dhacay ubax tahliila igu soo dhacday ubax tahliil adig ugu soo tiri saane war malaa'igta inaan anugu malaa'igta kamid ah camal war kaaji ubax tahliila ka dhalatay war yaar cadaabta la geynin war soo celiya dad badanba dameeraha marka dadka dameeraha oo xayawaanka ah waxay ku nabad galaan inta fiican bay ku nabad galaan way ujeedkayga waxaan uga socdaa abgaal eeda ma qabato dad 90% gob ah
xoogaa marka handicapya oo iska caqli yar oo la adeegsado oo aan garan karin cidda xanaanaysanaysa iyo qofka haysa wallaahi iyo nabiga ilaahay cidda iskala xataa inaysan aqoon oo lo aho la iska maalo waa jiraan waana 4 hadday marka qaydaan habar gediray meel xuna nooga tagtay hiraabkii aawa hooyo jacalley eedadeeyey kiyay ka caqli liitaan alla hooyoy ma iska carara alla aabow ma isku xaara caqliga noocaasa iyo fikirka noocaasa iyo damiirka noocaasa ayaan ka arkaa waa caqliga noocaasa marka intaasaan horta leeyahay taa inta iga dhig waxaan rabaa marka magaalada muqdisho inaan u dhaco muqdisho yaa kule muqdisho ayaa wax lagaa weydiinaya yaa si handicapku ka leeyahay muqdisho ana iskale abtiga ayaa iskale aabaha ayaa iskale awoowayaasha ayaa iskale maxaan marka maxay tahay lahaanshadaas waa berigay miyiga ahay berigay miyiga ahada beeraha ay noo ahayd aniga aabahay iyo abtigay berigay beeraha u ahay markay kasoo gudubtay ee ay caasimaad naqatay oo ummadda soomaaliyeed iskugu tagtayna muqdisho lahaansho qabiil way ka gudubtay way ka baxday muqdisho waa caasimad soomaaliyeed cidda wax laga weydiiyana waa aniga iyo abtigay iyo cidda loo riix marax kacalcada gibil ninka dadka midabka furan waxaynu leenahay muqdisho waa caasimad soomaaliyeed handicap iyo wax jiran iyo imaaraad iyo caadaqaato uu soo dirana waxba laga weydiin maayo wax laga weydiinayo iyo xuquuq ay ku leeyihiin ma jirto muqdisho ninkii u dhashay oo ku dhashay baa xukumaya maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku dhashay magaalada muqdisho yaa kale qabiilkaagii qarmoonaaye qaxa ku yimid baa kale adigoo baadi adoo dameer wada jirayaa kale wax muqdisho ninkii dhisayaa iskale muqdisho ninkii wax u qabanaya laakiin ninkii khaa'imaya ee gabdhaheedii iibinaya gabdhihii magaalada iibinaya u diraya sacuudi carabiya dumarkii ay lahayd magaaladu inta iibiyey carab u loogay gawaad ya dumar iibiye fataaluhu magaalada muqdisho wallaahi inuusan farmaajo ka yeelan karin iyo billaah waa ninkii dhisaya iskale yariisoobaa iskale anaa iskale khayraa iskale ciddii wax u qabanaysaa iskale iyo soomaalida gobta ahaa iskale guud ahaan meelay joogaanba ee muqdisho waxay tahay iyo waxay guddo iyo waxay tahay yaqaanaa oo aan u haysan tuulo qabiileey oo haystan caasimad bilan oo macno leh oo dalka madaxiisa ah qofkii garashadaa leh caqligaa leh ayaa horta iska leh hal waxna iga hoo nin la soo diray ninuu soo diray haddee mid la soo diray awal oo imaaraad soo diray ninuu soo diray maydkiisa unbuuna soo agdhigayaa mooyaane wallaahi iyo billaahi tala gambanaga gamb wallaahi buusan shilin wallaahi buusan beesteen naga qaaday oo billaahi inuusan naga qaaday muqdisho sharafteeda waa ku diriraynaa waa lagu waa u dagaalamaynaa waynu geynaa magaalada muqdisho waxaysan geyin guni oo lama iman karto iyo handicap iyo wax garasho gaaban balse anigu waa intii aan idin lahayo waxaan idin leeyahay horu socdow inta kale horu socdow intay hebeliyo hooseeyaha baas nahodayaan hooya maandeeq hilbaheedii haliilahayaan hootadaydii waa halkeedii hootadaydii waa halkaygii codkaasa dhuux ahaan iyo dhiig ahaan iyo maan ahaan iyo maskax ahaan intaasay nagu jirtaa jeeran qaran helo wale kama haro hunufyada baas kuwaan hunuf leh ee imaaraadku soo dirayo iyo inta gunta ah wallahi baan madideeda aan dhulka dhigin diini wa rabbul ciz muqdishay tuwacanay gurigii tacliintay togi ubaxu jiifay dalka looga taliyay tolmo magaalay inta qurux tilmaanteed kolla aad tif iyo tahay kolla ay tif iyo tahay tinta caaradeedana waxba aan ka tegin rabbi uu ku toonshay taban taabiyay ruux waayuu la tiiceen dhulkii taajiriintay inkastoo tacbaanto taa haysay waayo cadowtaangii kula dhacay oo marna aan lagu turin timaadaa muhiimehe tagtadii ilaawo taban taabadaadii ogo way tis qaaday
wiilal aad ku taalood ku tallaalan tahay oo labadaada tiir xamar tarankii ka beermaa la wareegay talado farmaajaa tusmeeyo qayrana ku taabacay rabbitiisa weeye korow kac istaag muqdisho kac miyirkaagii ha soo noqdo tabtaadii baad ku noqon tabtii aad ahaan jirtaan wallahi ku noqon ubax baa ku wada laalaadsan inan gumeed wallahi uusan geedka soo dhaafi karin inan gumeed iyo handikaab iyo liite iyo dameer reer u xiran oo reerkiisa ka tegay midnaba muqdisho iyo masiirkeeda shuqul kuma laha waxna laga weydiin mayo munaafaqad dad la isku diro isku rid isku dhicid la doonayo in dadka la isku diro nin daarood haa jooga nin daarood aryaa nin daarood yaa jooga daarood baa jooga daarood adugu waxa la iska kaamaalay abaa qalka ka hoose halkaagaa dameeriyo iskaga xiraw intaa aryaa daarood baa jooga daarood baa jooga daarood balaayaa ku qaadaa daarood xu kaa baasha xaw daarood kuu dhiba xaase magaaladan iyo daarood isoo geliy magaalada muqdisho waxaa iskale qof kasta oo soomaali ah oo hagaageeda doonaya inay dhisanto garta horta kow qofka waa inuu kala saari karaa xumo iyo samo qiimaha magaaladan iyo tuuladii uu ka yimi qof kala saari kara ayaa horta marka ugu horeysa cv-ga intaasaa laga eegaya dirshe maxamed 4.5 ayuu yiri 4.5 iyo muqdisho waa kala duwan yihiin muqdisho waa caasimadaydi lamana rabo inaan tuulo ka dhigo muqdisho waa caasimadii dalka masiirkeeduna waa ka wan yahay tuulo magaaladaydii anigu aan aqaynay caasimadaydi anigu aan aqaynay yaarta yaa dan ku qaba horta inay muqdisho ay caasimad ahaato iyo inaysan caasimad dan waxaa ku qaba inta garashada leh soomaalida iyo qofka ku dhashay ya muqdisho maxay tahay muqdisho waa in la hubi waa in la aqoon karo soomaali garan abgaal iyo murusade iyo reer xamar iyo shiiqaal iyo jareer waa ka tagtay muqdisho intaas waa ka tagtay muqdisho waa caasimad waxayna u baahan tahay ciddii dhisaysaa ee bilaysaa ee cirkaa geynaysaa ee wanaagsan ee sharaf leh burburkeedii yaa geystay magaalada muqdisho ninkii saad ogeed u dhigay baa wuxuu leeyahay muqdisho masiirkeeda yaad u sheegay hooyadaadii war yaad u sheegaysaa dee waa iyaa dad kala racinaysa yaa dumiya magaaladan yaa ciidda ka dhigay iyadoo oo aad moodo gabar aroosa iyadoo magaceeda la yiraahdo waxaa la yiraahdaa العروسة العروسة المحيط الهندي أروسدي بدوينت هندية أيضا اللي يراهدو أو مدحوينياش الديارات كورمرياه أي كبحيان سلام مو قيدة إيا لرتيدة إيا قابك لرتو الددي سيوتها لامانت يا كبحي مصير كما قالوا مغشبها يا النار الله كوري قال ضلي الله محو قنسنا روح قنسنا هو قني ما بدنا أو ولي مركز ودنا صوني عليه وصحي يا ولي أبقى الاسمان ضدك أمري ضدك وحس لها والله أنا إذا كقول أراناي يان لوج فين ضدك ضد وح سقور ما هني أبقى التايس ما قوري كنا ده سقور أنا وسكل علاي أنا وقفت يلا والله إني سنة وحن كوضا بالله ترى دور ضميره كذا تيو غيرك لا إسكرتان أذر أبقى ما هذا وحس أبقى اللي ما يراد كوا هذا عارف كمالود كوا يسوعه وحي الربان مية ما كان إنا نعايو وعيرين تا سعود له رابتك ألقى كاري لأيه رابتك ألقى كاري لأيه وعرده وربنا يهين قاده نما وعين هذا قرا وعلي نمنا وعلي واجي اللي يستري هويوس ده وعلي هبر قدري أبقى هاي الشيء نمان كلا قصة بيرة يالي نمر كاسير أنا قايل أنا ليش أبقى العوري يالي وهذه كرة دجال كم كوجتين ما فهم أنا وحنا مرك الله يا ضدكم وحي الروان ما إنا نعاير الروان
weligay abgaal ma caayin ceebna kama sheegin shaqsi xasan sheekh maxamuud hadda ma abgaalaa ma abgaala naga hagada fataalkaas aan abgaal ku dhaafaa aan abgaal ka dhignaa qofka ku tilmaama xasan sheekh maxamuud qofka ku tilmaama abgaal qof ku tilmaama wallaahi bilaahi talaa abgaalnimada meel wadacay wuxuu ku tilmaamay abgaalnimo naga hagado wada fataalo inay kama qaadan mana yeeli doono kama iskuna heshiin mayno xasan sheekh maxamuud sharafkiisa iyo qabiilka abgaal sharafkiisa in xasan sheekh maxamuud qorta loo soo imaamkaaga ku qolatahay imaamkaaga ayaad ku qolatahay haddii aan wada xasan sheekh maxamuud hawiye ama aan ku raacno ama abgaal aan ku raacno wada fataalana haddii aan sheekh cali wajiis raacnana de waa sidaasoo kaleto waa wada waxaanahay awliyada allah soo maada garan qof dadku cidda ay ku faylaan imaamka ka dhigtaan bay la diin yihiin lana dhaqan yihiin marka ceeb bay ku tahay dad walba qabiil markii la yidhaahdo dadka xun sheegta ee u heliya hadda kasoo qaad nimana berdhowd waxay yidhahdeen ila cabdishakuur badgad waa nin fiican madaxweynihii mustaqbalka ilaahay baan kugu dhaarshay miyaanay marka wada badgad ahayn dadkaasi wada badgad waayo wixiisi ay ku taageersan yihiin wixii ay ku taageersan waa isku han intaa gara hadda marka dadka abgaal ku tilmaamay xasan sheekh maxamuud ee yiri ama abgaal ha ahaadeen ama qola kale ha ahaadeen abgaal ku leexiya waa gaf xasan sheekh maxamuud abgaal xasan sheekh maxamuud maahan ee xasan sheekh maxamuud abgaal taas horta ogso alla kala saar horta abgaal marka fataal maahan laakiin fataal baa iyaga sheegta sidaa u ogaada marka wuxuu waa inay sidaa u kala saaraadaan haddii qabaa'il laga dhigayo haddii aynu soomaali ka hadlayno oo aan soomaalinimo ka hadlayno oo aan soomaali markaa nahay inta xuninama aha inta fiican horta waxaan rabaa oo kaleeto marka waxaan leeyahay gobolka banaadir hadalkayga waxaan kusoo jaraya oo aan kusoo xiraya dhinacaas markaa idhahdo muqdisho magaalo imaaraad ku leeyahay ma muqdisho daba dhilif lacag soo qaatayo meel uu hagi karo ama masiirkeeda uu gacmayn karo maaha muqdisho mas-uuliyad bay leedahay muqdisho dad wax laga weydiiyey leedahay hadday u dhalasho asal raaca noqotona anaa layga weydiinayaa cidda ila qaybsanayna waa aqaanaa cidda ila qaybsanaysana oo aan wax is weydiinayno wax iska weydiinayna magaalada bergay miyiga ahaydna waa aqaanaa markay magaalada muqdisho caasimadda noqotayna oo ay miyinimadii ka baxdayna waa magaalo soomaaliya laga wada hadlayaa iyadoo degan oo la qabooya daba dhilif iyo muqarib iyo nin doonaya in dadka laysku diro magaalada gulgelatay halkeedii ku noqoto dib usoo noqonaysa magaalada dib usoo noqonaysa kuwa doonaya inay argagixiyaan ee argagixisada ka liitana war waxaan leeyahay bal waxaan colaadana ka bixin cadowna kaa weecin beleleqa cantuug calaf u tahay iyo guri cidaad hayso oo aan dowlad caadilaya rabin qaran inoo caam ah oo calanka rugaya oo ciidda gadanaya oo aan cid loo dhiga la arag sawcaa jabama caashan warankaa gelin wallaahi iyo bilaahi iyo tala waa naqanaa doqono markay sidaa tahay caaluhu markuu sidaa yahay oo joogi waayo dhuunta waran laga geliya yariisow geeridiisa kuwii maaragtay sugayey ee yariisow markaa mid xunoo la yidhaha cabdullaahi xalira carab magaciis muxuu ahaa cabdilqaadir hee kii jamistar ayaad mooday bisad muxuu ahaa faysal jalow waa maasanta adeer macaan waa codeysa waraadhe waa codeysa adeer macaan war waxaan rabaa kii muxuu ahaa doqonkahay ii sheeg cabdullaahi maxaa la jira cabdullaahi kii lahaa yariisow magaalada muqdisho kii argagixisada ii sheega kii abgaal sheeganayayo maal dhoodi lahaa yariisow magaalada muqdisho waa in oo ku jiray baarlamaan ku jiray cosoble cabdullahi cosoble mase cabdulqaadir cosoble la yidhaha aada moodo bisad qadsan saas jamiis la soo jeeday ha cosoble kii aada mooday cosoblahaas aada moodo jamiis lood moodo bisad xalay iyo habeen hore qaday xaaraan kunaaxaasoo miiran magaalada muqdisho shuql hadduu dameero banaanka ku waday xaguu ka yimid isagu
jawxa marka leeyahay haddow baa digii wadamarku wadi jirayo meeshaana burris ugu dhacay goormuu xamar yimid ma yariisa uu xamar ka leeyahay waa yandar intaa waxaan leeyahay marka waxba dadka maankoodu uusan hagi karin aan kala saari karin xumaha iyo samaha caasumad iyo tuulo qabiil iyo qaran waxaan leeyahay baahi gaar ahaad qabtaan idinku keliya waa markii aad cabdulqaadir cusub exactly adinku cisbitaal aad xaq u leedihiin waana la gaari doonaaye noo kaadiya muqdisho ciidan waxba idinka weydiin maysay kuwa imaaraadka lacagta kasoo qaatay ee codka imaaraadka ku halna waxaan leenahay imaaraadku dal buu leeyahy annaguna dal baynu leenahay intan ka badana cadow uma hogaansanaan karno kama qadsanaan karno barwaaqadeena ninna uma rarnin sida adinku dhuunta wax laydinkugu mariyana annagu dhuunteenna ma marto waxa aad marteeno hilbihii hooyadiin baad karsanaysaan oo dheriga ay ku karsanay ka sugaysaan ood cuni kartaan oo awoodaasaad leedihiin dalka annagaa iskale batroolkeennana waa soo baxaya istaraatiijiyadda dalkeennana cid hagaysa ma jirta haddaad waxaas ka cunteen gabla mooyin intiina cuna oo iska seexda dhuunta allah idinku dhifto kasar allah idinkaga riday magaalada muqdisho kuusoo hartay imaada naclatullah calaykum intaasaan lay horta muqdisho anaa muqdisho taladeeda iskale samadoonka soomaaliyeed iskale ciddii qiimeynaysa ee kor u qaadaysa ee soo celinaysa ee laxaw ay ku haysaa iskale intaasaan lay handicapna waxba ka weydiin maayo iyo habar isgebtay oo ilmaheedii meel cilaa uga dhaqaaqday oo uusan ninkeedi gurigeedi kule hoyanay ninkeedii 10 jeer booliis ugu yeertay single mother baaba'day oo alla quursadon qofna shukaansanayno oo waalan oo ku waalatay hadda siyaasad iyo qabiil ku waalatay iyo xamal maxamed waxaan rabnaa muqdisho masiirkeeda xaad adigu adigayaan beel ninkaaga ilmaaga isku haysa waayey habaar kugu dhacay imaanka lagaga qaadi bela ku dheefsata shiishadan iska kala daageliya intaas ku dheela daasod la burur leedahay iyo dhuxushan aad qalajiye beerka lagu dhufay intaasaan u leeyahay dhuxulaha dhuuqa iska juji kaliya waxaan rabaayoo kaleeto aad baan ku salaamayaa maryan walaal adiga iyo aadan cabdi iyo kulligiinba aad baan idin salaamayaa waxaan u malaynayay ninka la yidhaahdo dalijer maxamedow dalkaa ba-ye wuxuu iri waa magaalo hiraabow waxaan u malaynayay ma toley ilan hiraabti waa la gooyey goraa la gooyey ma isku toley ya isku to goraa laga tegay warkaas ya a kugu taagnaata inaan nimanka maaragtay nimanka aan aad u jeclahay oo liraa jareerweyn markay qof waran ku dhuftaan ay yidhahdeen a kugu taagnaata abo sidaadaas beejada iskaga sooda iyadoo go-an sida meelaha gorara la kala goosantaada gabl kan waa mid waagi goorta u baryaba aan ogeyn akhriya adduun midna aan ogeyn allaad leedahay waxaan rabaa inaan u dhaadhaco waxaan arkay niman baarlamaanka ku jira waxaan rabaa niman waxaan arkay baarlamaanka ku jira oo aan xishoon oo 2 kelmadood ay ku dhawaaqaan waxay yidhaahdaan niow maya barnaamijka imika harta intaa aan ku ekeeyo isla this minute baan soo gelaya marka isla this minute si aan u kala jaro waana mahadsantihiin kalaan ku xijinaya barnaamijka waxaana idin leeyahay soomaaliyey nabad iyo nolol ku waara haddaan soo gelaya isla meeshaan ka soo gelaya saan u kala gooyo oo dheeraanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu